waa barnaamijkii saddex magaalo ee booqanayay qaar ka mid ah magaalooyinka caalamka wuxuuna markaan si guud uga hadlayaa saddex magaalo oo dhaca qaaradda Koonfur Ameerika waana magaalooyinka kala ah São Paulo, Bogotá iyo Lima. São Paulo waa gobol ka tirsan dalka Brazil waxaana guud ahaan dadka ku nool lagu qiyaasaa ilaa 45 milyan. waa gobolka ugu dadka badan gobolada Brazil waana midka ugu dhaqaalaha badan wuxuuna GDP-ga dalka Brazil kaga qayb qaataa ilaa 39.9. gobolkan baaxadda weyn wuxuu ka dhaqaale badan yahay dalal dhaca Koonfur Ameerika, dalalka Bolivia, Uruguay iyo Argentina oo la isku daray waxaa ka dhaqaale badan gobolka São Paulo. haddaba gobolkan caasimadiisa waxaa lagu magacaabaa São Paulo waa magaalada ugu weyn Koonfur Ameerika sidoo kalena waa magaalada afraad ee ugu weyn caalamka waxaana marka mitir ahaan loo eego ku nool dad gaaraya 21 milyan. sidaas daraadeed waa magaalada ugu tunka weyn marka la eego magaalooyinka lagaga hadlo afka Portugiiska. laakiin magaaladan sidaan u weyn ma ahan caasimadda Brazil ee dalka Brazil waxaa u caasimada magaalada Brasilia. São Paulo waa magaalo dhaqamo kala duwan ay ka jiraan dadka ku noolna intooda badan waa dad asal ahaan reer Yurub ama Caucasian iyo qaar bardo ama dad meelo kala duwan ka soo jeeda ama mixed sidoo kale madow iyo Asian ayaa tiro xoogan ka ah dadka magaaladan. waa mid ka mid ah magaalooyinka sida weyn qaybta ugu ah shabakadda dhaqaale ee dunida waana magaalooyinka lagu naanayso Power City, Wall City, Alpha City ama Wall Center. dadka asaliga ah ee magaaladan loogu yimid waa dadka la yiraahdo Tupi. gumeystii Portugiiska ayaa deegaan ka dhigtay magaaladan sanadkii 1554 balse magaaladan kobaceedu wuxuu ahaa mid gaabis waxayna qarniyo badan ahayd tuulo yar. in ay degdeg u kobci weysana sababaha ka qayb qaadanayay waxaa ka mid inay masaafo badan ka fogeyd dhanka badda. 1712 ayay darajada tuulanimo ka dalacday kadib markii laga qaaday keed dahab waxaana sidoo kale ka bilowday abuuridda iyo ka ganacsiga dalagga sokorta laga soo saaro ee qasabka ama sugarcane. sidoo kale magaaladan waa mid ka mid ah meelaha ugu badan ee laga soo saaro bunka ama kofeega. maanta magaaladan waxaa ku yaalaan xarumaha dhexe ee inta badan shirkadaha iyo iskaashatada ugu waaweyn Brazil waana xarunta ugu weyn ee wax dhoofinta dalka Brazil. sideeda guudna waa xarunta ganacsiga iyo warshadaha Brazil. marka Brazil la joogo magaaladan waa mid ay kala duwanaanta dhaqan ee ugu badan ay ka jirto waxaana lagu qabtaa bandhigyo dhaqan oo caalami waxaana laga cunaa cuntooyin wadani iyo kuwa caalami magaaladan waxaa ku nool carab aad u badan. sidoo kale marka la eego guud ahaan Brazilna jaaliyadda Talyaaniga intooda badan waxay ku nool yihiin magaaladan São Paulo. sidaas daraadeed waxaa magaaladan aad looga qiimeeyaa cuntada pizza waxaana ugu yaraan maalintii magaaladan laga cunaa ilaa 1 milyan oo pizza sidoo kale magaaladan waxaa aad uga muuqda dhaqanka Japaaniiska waxaana ku nool tirada ugu badan ee dadka Japaaniiska ee jooga meel ka baxsan qaaradda Asia waxaana tiradooda lagu qiyaasaa ilaa 1.5 milyan. bilowgii qarnigii tagay ayay Japaaniisku bilaabeen inay magaaladan yimaadaan waxayna maanta leeyihiin jaraa'idyo ayaga u gaar iyo wadooyin loogu magac daray waxayna sanad walba u dabaaldegaan maharajaanadooda dhaqan waxaana magaaladan laga helaa goobta kaliya ee ka baxsan Japan ee lagu ciyaaro ciyaarta sumo oo lagdan ay dadka Japaaniiska ku caan yihiin. magaaladan waa mid leh shabakadda helikabtar ee ugu weyn waxaana magaaladan laba lagu arkaa diyaaradan 5 daqiiqo walibana waxaa la arkaa ayadoo ka degaysa ama ka kacaysa dhismayaasha dhaadheer ee magaalada waxaana xusid mudan in magaaladan aad ugu badan yihiin gawaarida yaryar waxaana ciriiriga wadooyinka dadka magaaladan sanadkii kaga baxaa ilaa 102 saacadood. si la mid ah magaalooyinka kale ee Brazil waxaa magaaladan aad looga jecel yahay ciyaaridda kubadda cagta waxaana ka dhisan kooxda lagu magacaabo Corinthians oo ay qarnigii tagay aasaaseen shakhsiyaad ka shaqeyn jiray wadada tareenka maantana waa koox weyn oo soo saartay ciyaartoy caalami magaaladan waxaa sidoo kale laga jecel yahay farshaxanka gaar ahaan farshaxanka jidadka sida magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil ayayna São Paulo u leedahay wadooyin darbiyadooda uu ka muuqdo farshaxan. wadada ugu caansan São Paulo ee farshaxanka lagu xardhayna waxaa lagu magacaabaa Pico do Batman. Bogotá oo sidoo kale loo aqoon jiray Santa Fe de Bogotá waa caasimadda dalka Colombia ee dhaca Koonfur Ameerika waa magaalo leh maqaam la mid ah waaxyaha ama departmentiska loo qeybiyo Colombia
waana xarunta maamulka, siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dalkan. Waa magaalo dhacda bartamaha dalka, gaar ahaan qaybta bari ee buuraha xiriirsan ee Andes. Qaab dhismeedkeeda dhuleedna wuxuu ka dhigay magaalada saddexaad ee ugu jooga dheer caalamka, waxaana dhul ahaan ka sareeyaan kaliya Quito oo ah caasimadda Ecuador iyo magaalada La Paz oo ah mid ka mid ah labada caasimadood uu leeyahay dalka Bolivia. Saddexda magaalo ee dunida ugu jooga dheer intoodaba waxaa laga helaa Koonfur Amerika. Caasimadda Colombia ee Bogota waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dunida, waxaana ku nool ilaa 8 milyan oo ruux. waana magaalo asaaskeeda rasmiga ah uu ku beegan yahay sanadkii 1538 kolkaas uu Isbaanishku saldhigay dhulka ay maanta dhacdo. balse waxaa la tilmaamaa ka hor gumaystihii Spain inay magaaladan ku noolaayeen dadka dhulkan loogu yimid ee Muisca. Magaaladan waa wadnaha uu ku shaqeeyo dhaqaalaha Colombia, waana halka uu ka dhaco inta badan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee Colombia. sidoo kale waa magaalo soo jiidata shirkadaha maalgashi ee caalamiga, waana magaalo kulmisa dhaqamada kala duwan ee dadka Colombia, waxayna u arkaan xudunta midaysa. waxaana laga helaa dhowr matxaf oo qeexaya guud ahaan dhaqamada ka jira Latin America, waxaana ka mid ah sida matxafyada kale ah National Museum of Colombia, the Museum of Modern Art of Bogota, the Moloca Interactive Center, iyo the Gold Museum. waa magaalo cagaaran oo inteeda badan laga helo beeraha nasashada, waana magaalo dhismayaasheedu isugu jiraan kuwa casri ah iyo kuwa taariikhi ah oo u laabanaya xilligii gumaystaha. magaaladan dadka ku nool intooda badan maalintooda ma saxna ilaa ay cabaan koob kafee ah, waxaana aad looga cabaa magaaladan kofeega ay u yaqaanaan tinto. Lima waa magaalada ugu weyn dalka Peru, waa caasimadda dalka, waxaana metro ahaan ama guud ahaanteeda ku nool ilaa 10 milyan oo ruux. 3 meelood meel oo dadka reer Peru ah ayaana ku nool magaaladan. Lima waxaa lagu magacaabi jiray magaalada boqorada ama the City of Kings ama La Ciudad de los Reyes, waxaana magacan u bixiyay taliyihii Isbaanishka ahaa ee Francisco Pizarro, kaasoo magaaladan aasaasay 1535. waa magacii ugu horeeyay ee magaaladan hantisay. ujeedka uu taliyaha Isbaanishka uu magacan u siiyayna waa inay asaaskeedu ku beegnaa maalinta fasaxa Kaatooliga ee la yiraahdo Three Kings Day. taariikh ahaan waxay mar magaaladan ahayd mid ka mid ah kuwa ugu hodansan caalamka, waxayna qarnigii 16aad caan ku ahayd oo ay soo jiidan jirtay burcadbadeeda. magaaladan waxay ku caan tahay shimbirka la yiraahdo Black Vultures. qofka magaaladan joogana haddii uu hawada sare fiiriyo waxay u badan tahay inuu arko shimbirkan. waxay dadka dalkan u yaqaanaan gallinazoes, waana shimbir dabeecad xun oo aalaaba lagu dadaalo inuusan magaalada ku sii badan. Lima waa xarunta siyaasadda, dhaqanka iyo dhaqaalaha ee dalka, waxaana ku yaalaan hay'adaha waxbarasho ee ugu waaweyn. waxaana magaaladan laga helaa the National University of San Marcos oo ah mid ka mid ah jaamacadaha ugu qadiimsan caalamka, waxaana la aasaasay 1551. magaalada Lima ee dalkan waxaa lagu tilmaamaa magaalada labaad ee ugu weyn caalamka ee dhacda dhanka saxaraha. magaalada kaliya ee ka weynna waa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Lima waa magaalo roobku aad ugu yar yahay, waxayna dhacdaa dhulka saxaraha ah ee u dhaxeeya badweynta Pacifiga iyo buuraha Andes.